cabdimaalig yuusuf maxamuud iyo axmed cabdi xasan oo labaduba ka mid ah howlwadeenada idaacadda Shabeelle muddooyinkii ugu dambeeyay u xirnaa dawladda Soomaaliya ayaa bariqnimadii maanta ka soo muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. Axmed Cali Daahir xirlaaliyaha qaranka ayaa isagoo soo qaadanaya nuqul ku jira dastuurka qaranka waxa uu maxkamadda u soo bandhigay eedeymaha loo haysto cabdimaalig yuusuf maxamuud oo ah milkiilaha idaacadda Shabeelle. xirlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir ayaa sidoo kale maxkamadda ka dalbaday in dib loo dhigo maxkamadeynta wariyaasha xiran sababo la xiriira kiiska loo haysto wariyaasha oo aan ahayn mid fudud iyo maxkamadda u baahan cadeymo ku filan. ضمانات حق ومدي نايب العين مثلا طولنا نجيبنا المجد مدة الاتحاد وحقوق قليل السنة احتمالك ضمانات الروح قرار بحياتها هاي وأخبرت كنا كنتونا هديد السيدة يحقق سؤال كعدالة سببتها إذا يسألوه وأود يرانا يركسه وبريو عديمها حسين لك dhinaca kale abukaatayaasha u doodaya wariyaasha xiran ayaa dalbaday in madax banaani ku meel gaar ah la siiyo wariyaasha ay xeerlaalinta qaranka soo eedeysay maadaama xeerlaaliyaha guud uu codsaday in dib loo dhigo maxkamadeynta cabdimaalig yuusuf maxamuud iyo axmed cabdi xasan oo labaduba ka mid ah howlwadeenada idaacadda Shabeelle. xaashi cilmi nuur gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda kadib dhageysiga eedeymaha xeerlaaliyaha qaranka iyo codsiga abukaatayaasha u doodaya wariyaasha xiran. dhamaadka go'aanka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir kadib waxaa jiray sawaxan iyo buuq ka dhashay shir jiraa'id oo gudaha maxkamadda ku qabtay mid ka mid ah abukaatayaasha u doodaya wariyaasha xiran iyadoo ay muuqanayeen ciidamada ilaalada dhismaha maxkamadda gobolka oo diidaya sii socoshada shirka jiraa'id taas oo dhalisay buuq iyo sawaxan. أويس محمود جلع رويال TV مقدشو.